kulanti wanaagsan soo dhawaada saaxiibayaal waxaan rabaa in ay idin la wadaago xog ama qoraal ay soo saareen dawladda Itoobiya kuna eedeynayso ama markaasi ay beenisay eedeymaha Soomaaliya ee markaasi ay ku eedeynayso in Masar ay carqaladeynayso xasiloonida waa markaasi geeska gobolka Afrika waqtigan la joogay ee u muuqato in xiisadeeda culaadeed ay cirka isku sii shiriirayso maalmihii ugu dambeeyayna si weyn markaasi looga hadlayay xaaladda geeska Afrika taasi oo waqtigan u muuqata in dagaal culus markaasi ka dhax qarxi karo waa Soomaaliya Masar iyo Itoobiya haddaba maxay tahay macluumaadka ay soo saartay Itoobiya maxay soo ugu hadashay macluumaadkaasi ayaa rabaa in halkan kugu la wadaago soo dhawow muuqaalka like gare share gare haddaad nagu cusub tahayna nagu soo biir oo ka mid noqo saaxiibadeena sida maalinlaha ah ee wararkeena halkan ugu la socda mahadsanidin soo dhawaada saaxiibayaal Itoobiya ayaana markaasi beenisay eedeymaha Soomaaliya iyadoo markaasi waa markaasi kuna eedeynaysa dawladda Masar in ay markaasi ay carqaladeynayso nabadda geeska gobolka Afrika iyadoo waqtigan la joogay ee dhinacyadu ay aad isku hayaan oo walibana markaasi ay sheegeen in ay markaasi culaado ay hurinayaan labada geesba Itoobiya ayaa qoraal dheer ay ugu hadlayso arintaasi soo saartay kadibna ay sheegtay in Soomaaliya iyo Masar waxa ay wadaan ay yihiin wax markaasi nabadda geeska gobolka Afrika caqabad weyn ku noqon karayo haddaba qoraalka ay soo saareen ayaana u qornaa sida tan Itoobiya oo beenisay eedeymaha Soomaaliya kuna eedeynaysa Masar inay markaasi carqaladeynayso ama carqalad ay ku hayso nabadda geeska gobolka Afrika Itoobiya ayaan markaasi ku andacotay in Soomaaliya ay markaasi ujeedo siyaasadeed ay ka leedahay arintan taasi oo markaasi loola jeedo in xiriirka labada dal ee markaasi la wanaajinin waxaana sidoo kale tilmaantay in ay jiraan ama markaasi jiritaanka dhinaca saddex geesoodka ay gacan markaasi ay ka shaqeynaydo burburinta xasiloonida geeska Afrika taasi oo markaasi Itoobiya ay markaasi ku tilmaantay in ay markaasi ku lug leedahay dawladda Masar dhan kale xiisadda siyaasadeed u dhaxaysa Itoobiya iyo Masar ayaana maanta markaasi sare u kacday iyadoo oo Qaahira si aad markaasi u sheegtay in Itoobiya aysan markaasi heli doonin wax cad waa markaasi wax awood ah oo markaasi ku saabsan badcas halka oo ay markaasi yimi iyadoo wasiirka kalluumaysiga ee Soomaaliya Axmed Macalin Fiqi uu garab joogay Masar kadibna markaasi maalmo ka hor markaasi ka qayb galay madal lagu heshiisinay ama lagu saxiixay Soomaaliya iyo Itoobiya una dhaxeeyay waa markaasi ka dhacay dalka Ankara taasi oo dawladda Soomaaliya iyo Itoobiya waqtidii ugu dambeeyay arrimo ay isku haysteen xasiloonidoodii iyo nabadoodii si weyn looga shaqeynayay madaxweynaha dalkaasi Turkiga Rajab Tayyip Erdogan ayaana ahaa mas'uulka sida weyn markaasi uga shaqeynayay labada dhinac waxyaabaha isku haysteen waqtigan la joogayna ay u muuqato in heshiiskii isaga ahaa Itoobiya markaasi ay ka baxaydo misna u muuqataba in nabadda geeska gobolka Afrika ay si weyn ugu ciyaarayso dhinaca kale Masar ayaa sheegtay in xiisadda geeska ee gobolka Afrika qayb weyn ay ka tahay Itoobiya inay kiciso misna saameyn weyn ay ku yeelato taasi oo waqtigan la joogayna aanan looga baahnayn inay talaabooyinka ay gudaha Soomaaliya ay ka qaadayaan aanan markaasi ku habboonayn dhinaca kale waxaan markaasi jira warar kale ay ku aadan sheegayaan in markaasi dawladda Itoobiya qorshayaal culus ay u diyaarinayso oo walibana gudaha Soomaaliya ay markaasi ay ka fulin doonto iyadoo dawlado kala duwan ay la kaashanayso qoraalka ay soo saareen ayayna ku cadeeyeen in markaasi Masar qayb lixaad ka geysanayso colaadaha ka socda Soomaaliya iyo Itoobiya oo walibana markaasi isku horgeynayda ciidamada dawladda Itoobiya ayaa si cad markaasi u beeneeday in Soomaaliya aysan ku lug lahayn laakiin xiisadan waxa kicinaya ama ka shaqeynaya ay tahay dawladda Masar oo markaasi ama dawladda halkan ciidamo fara badan ay ka joogan gudaha Soomaaliya wixii warar kale ka soo kordha labada dhinac halkan idinku la wadaagi doona si share gareey muuqaalka meel dhan gaarsiistirana qaybta hoose faalada commentiga aad nagu reebi kartaa sidoo kale waxaan idinka dalbanaynaa dhammaan mareegahan inaad soo follow gareedaan YouTube aad soo subscribe gareedaan sidoo kale TikTok iyo Facebook-ana aad nagu soo biirtaan mahadsanidin